wafdi ka socday wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradaha qorsheynta maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed Soomaaliya uu hogaaminayay wasiirka xigeenka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qoloco ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana ujeedka wafdigan lagu sheegay in ay ka qayb gali doonaan ashir wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradaha qorsheynta maamulada ka jira dalka Soomaaliya oo furmi doona magaalada Kismaayo isla markaasina shirkaasi lagu sheegay in uu ajandihiisu yahay sidii loo abuuri lahaa qorshe qaran oo ka bilaabanayo sanadka 2017 ilaa 2019 maashaha wafdiga kadib ayaa waxa ujeedka safarkooda ka warbixiyay wasiirada galmudug iyo koonfur galbeed Soomaaliya waxaana hadaladooda kamid ahaa haddaan ka sheekeeyo socdaalkeena iyo ujeedkeena halkaan u soo gaarnay haddaan ku daro anagu waxaanu nahay group lagu magacaabo National Advisory Committee ka kooban ministerial level ah mobiki ama wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee federaalka liid garaynayso sidoo kale waxa kamid ah wasaaradda qorsheynta galmudug iyo koonfur galbeed iyo Jubbaland halkaan hadda joogno ayaa kamid ah ujeedka loo aasaasay ama loo sameeyay wuxuu yahay in ay aruuriyaan xogta ama priorities ay leeyihiin state levelka si loo sameeyo hool ama qorshe horumarineed 3 sano ama qaran si loo sameeyo ujeedku yahay waxaan ku soo koobayaa oo kaliya qorshahan hadda la wado oo waddanka oo dhan laga wado waa qorshe ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed anfacaya waana qorshe ka markhaati kacaya wax ummadda iyadu ay leedahay ummadda ka soo baxay in la rabo in la sameeyo dad kale aysan noo samayn annagu aan samayno sidaas daraadeed waxaana markhaati ka ah haddeerba maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada socda oo habba meel tagaya waxaasoo dhan waxay u socdaan in waddankan uu helo qorshe ka wada dhexeeya qayb walboo ka mida iyo dowlad goboleed walboo ka midana ay iyadu ka geysatay wixii dareenkeeda ahaa baahideeda ahaa horumarinteeda ahaa ugu dambeyn waxaa kulanka ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qoloco waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxaan u soconaa inaan la qaybsano dowlad goboleedka ilaha Jubbaland inaan la qaybsano waayaragnimada sameynta qorshe qaran qorshahanu qorshayaashii hore dalka loo sameyn jiray waa ka duwan yahay maxaa jeeray waagii hore waxay ahayd dowlad hanti wadaaga meel dhex laga maamulo laakiin sakanu wuxuu ku salaysan yahay siyaasadda cusub oo ah federalismka oo ah in dowlad goboleedyadu ay u madax bannaan yihiin shaqooyinkooda hoose marka waxaan halkan u nimid in ay dowlad goboleedka ahdo Juba aan la qaybsano way aragnimadeennii waxaana shir ku soo qabanay hadda Puntland si wuxuu noogu soo dhamaaday qurux badan sidaas la midana waxaan ka filanaynaa Jubbaland ayaga sameynaya qorshaha ayaga u madax bannaan ayaga waxay sheegtaan ayaan la qaybsanaynaa qorshahaas oo ah qorshe 3 sanadood ka bilaabanaya 2017 ilaa 2019 marka haddana waxay la socdaa madaxdii wasaaradii qorshaha koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka galmudug oo ayaguna nala socda sidaas la mid ah waxa qayb ka ah dowlad goboleedka Jubbaland aase kastaba ha ahaatee waxaa dhawaan la filayaa in magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose uu ka furmi doono shirka loogu magacdaray qorshe qaran isla markaasina ay wada yeelan doonaan wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha qorsheynta ee maamulada ka jira dalka Soomaaliya Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo.